kulankan ay ka soo qayb galeen waxgaradka iyo maamulka gobolka Sool ayaa ujeedkiisu ahaa taageero ay u muujinayaan go'aankii madaxweynaha Soomaaliland uu ku kala qaaday doorashada golaha wakiilada iyo tan madaxtooyada waxaana ay mas'uuliyiinta kulankaasi ka hadlay dhammaantood soo dhaweeyeen go'aankaasi odayaasha iyo waxgaradka degmada Laascaanood ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aankaasi geestooda kale mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Laascaanood ayaa iyana taageero u muujiyay go'aankan madaxweynuhu sameeyay dhawaan ayaa ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray wareegto ku kala qaadayo doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxtooyada waxaana ay soo taraya taageerada ay shacabka gobolada Soomaaliland u muujinayaan go'aankaasi aha in la kala qaado labada doorasho ee baarlamaanka iyo madaxtooyada waanu taageersanahay waanu soo dhaweynaynaa raalli baanu ka nahay waa madaxweyne daacad ah oo dadkiisa iyo dalkiisaba u naxaya saaka hadal badan ma jiro aad baan u soo dhaweynaynaa maxaa la yiraahdaa go'aanka madaxweynaha qolada beesha caalamkana waxaanu leenahay danta reerkayaga annaga ay koog danta Soomaaliland madaxweynaha iyaga og uu go'aanka ku qaatay in la kordhiyo baarlamaanka dib loo dhigo taana waa mid aynu aad ugu qanacsanay kuna taageerana rajeynaya iyadoo aynu saamigeennii halka uu ku jiro kordhinta iyadoo madaxweynuhu go'aanka uu qaatay mid danteenu ku jirto aynu aragno inagu maanta horena madaxweynuhu go'aan buu Laascaanood iyo deegaankeena ugu qaatay oo horumarka waad aragtaan maanta Laascaanood ka socda waa madaxweynihii koobaad ee Laascaanood wuxuu qabtay la oran karo taariikhda sheegi doonta madaxweyne waa kugu soo dhaweynaynaa haddaanu nahay gobolka Sool iyo degmooyinkiisa waad ku mahadsan tahay la shukri cala alwaajib waxaad na garatay xuquuq gobolada bari ka maqan oo fara badan aad baan u taageersanahay waana soo dhaweynaynaa waana ku mahadsanyahay madaxweynuhu waxaan aad ugu faraxsanahay inuu kala reebo labada doorasho ee madaxtooyada iyo baarlamaanka waxaana dadka aad u daneynaya baan nahay inay kuraasta baarlamaanka ay ku helaan qismi weyn si aanu dadka wax ula qaybsano waxaan mar walba ku bogaadinayaa deedo kolayna wadanyar dacaydaysan waxa tidhaahdeen wadani hasahaate saxaafadda wuxuu cirramariyay anigu oo wadanimaba taageersani waayo dalku wuxuu leeyahay golayaal sharci dejin madaxweyne masiirka ummadda dadka og beel caalami ma hayso hadduu beel caalami wuxuu dhuha qaltaagay anagu isku fikrad ma nihin dadka halka fadhiyana waxay ka kooban yihiin shacab weynihii gobolka Sool iyo kii degmada Laascaanood mas'uuliyiin fara badan way fadhidaa oo heer gobol iyo heer degmo waxay dadkaas ku soo baxay inay taageeraan go'aankii madaxweynuhu geesinimadan uu qaatay ee ku kala reebay laba doorasho isagoo kursigiisa soo horeysay kiisi mayna arag qof kiisa yiraahdo lagu tartamo halka waxa ka muuqata kartida khibradda iyo aqoonta uu leeyahay mataqaana kulankan ay ka soo qayb galeen odayaasha iyo waxgaradka ku nool gobolka Sool iyo maamulka gobolka degmada Laascaanood ayaa ahaa taageero ay u muujinayaan go'aankii uu ku dhaqaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray Somali News TV Laascaanood